buuhda la gelin dhibaatada halayaan iska ilaalino aynu gacmaha is qabsano buuhda wada ogtihiin maamulka Khaatumo ee hadir jira waxa weeye wuxuu rabaa in uu keeno wanaag iyo barwaaqo iyo hay'ado iyo nidaam dadkii dhintay ee buuhda ku dhintay ee faraha badnaa ee dagaalkii SSC ku dhintayna Khaatumo waxay rabtaa in ay ku jirto wada hadallada ka socda waqooyi oo meel la saaro marka hore inta shardhicin in horta arinta meel la saaray raban Khaatumo inta wada hadal dhicin halkan maanta waxa ka dhacay shir weyn oo muhiim ah isugu yimaadeen dhamaan jaaliyada UK Birmingham waxaana laga hadlayay qodobo muhiim ah oo ku saabsan shirka ka socda xamar ay ka wadaan rag siyaasiyiin iyo qaar kamid ah simada gobolada Sool iyo Sanaag Cayn ama Khaatumo iyo taageero loo muujiyay maamulka Khaatumo ayaa kan lagu qabtay haddii aan dib ugu noqdo dabcan wixii la yiri waa la yiri shirka ka dhacay xamar khiyaarta isimada iyo siyaasiyiintu ay isugu yimaadeen waa laga wanaagsanaa kulley in xamar la tago oo halka shir laga qabto kulley shirkida wuxuu ku soo dhamaaday natiijada ay dhashay waanu arkaynay haddii gobolada dadka ku nool reer Khaatumo ay wada hadal la fureen Somaliland waxaan maraynayaa de federaalkuba way la fureen wada hadal Somaliland marka wax mancinaya in Khaatumo ay Somaliland la hadasho anigu de garan maayo keesku maaragtay halka waxyaabaha la isaga soo indhatirayo ma garanayo Somaliland waa dad Soomaaliyeed oo kamid ah Soomaalidii una malayn maayo xaqiiqatan runta marka loo noqdo reer Soomaaliyeed oo maqan inay Soomaalinimo jirayso u malayn maayo Somaliland intay maqan tahay in Soomaali weyn la helayo ismalihi haddaan nahay jaaliyadii Birmingham ee UK iyo jaaliyadaha kale ee maartay ka dhisan caalamkaba runtii fikirkaas iyo aragtidaas aanu qabnaa waxaan ka soo horjeednaa ama dacaynaa shirka lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaan u aragnaa inuusan munaasab ahayn waqtigan iyo xaaladda lagu jiro ayna waqtigan munaasab ahayn in shirka la sameeyo marka waxaan ra'yigayga ku soo darsanayaa in ay tahay in macnaha odayaasha ay dhulka ku noqdaan